Solo saaxiibayaal mar kale muuqaalkana maanta wuxuu ku saabsan yahay safar from Germany to UK. Maalmahanba waxaa ku sugneen meesha Jarmalka ahayd. Hadda waxa la soo gaaray waqtigan ka laaban lahayn oo kama bixi lahayn. Muuqaalkana wuxuu xambaarsan yahay macluumaad badan oo la xiriira marka UK la soo galiyo nidaamka iyo procedure-ka la maro. Haddii aad tahay qof baasaboorka UK haysta citizen-ka ama midka qaxootiga oo marna aan dhoofin, waxaan aaminsanahay muuqaalkan inuu wax badan ka tari karo. Sidoo kale haddii aad tahay qof European haysta oo raba ama qorshaystay inuu UK u safro markii ugu horreeyna ay tahay, waxaan aaminsanahay muuqaalkan sidoo kale inuu faa'iido ku leeyahay. Intaan muuqaalka u gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay meeshan ama channelkan, waxaan kusoo gudbinaa vlogs iyo ka faa'iidaysiga teknoolajiyadda. Labadaas haddii aad xiisaysid, waxaan kaa rajeynaa inaad nagu soo biirtid. Sidoo kale waxaan kaa codsan lahayn muuqaalkan inaad like saartid. Haddii aan gudagalo muuqaalka, waxaan joognaa meesha Jarmalka ahayd. Saaka waa ka baxaynaa, waa ka duulaynaa, waxaan ku jahaysanaa meesha UK ahayd. Safarkan wuxuu ka bilaabanayaa meeshan waa magaaladan joognay oo magaceeda la yiraahdo Bremen. Garoonkeeda weeyaan waa magaalo gobola, maadaama gobol tahay garoonkeeda waa iska firaaq oo saxmad badan kama jidho. Saad arki kartaan garoonka laba dabaq weeyaan, qaybta hoose aan joognaa. Hadda waxay noqonaysaa inaan gudubno qaybta sare, laakiin intaana qaybta sare aan u gudbin qaybta hoose u jeedaa meesha shaashada lambaras ka muuqda. Waxaan ka soo qadanay boarding bus-ka, kadibna saasaan ugu sii gudubnay qaybta sare. Qaybta sare waxaa ku yaala dhammaan procedure-ka la mariyay, haddii ahaato baaritaankii, migrationkii iyo geedkii laga baxayay diyaaradda. Intaa kadib waa soo gudubnay meesha baaritaankan oo kasoo gudubnay, boarding bus-kan waa kasoo gudubnay. Hadda waxaan rabnaa inaan kasii gudubno qaybta migrationka. Hadda waxaa taaganaa migrationka hortiisa oo ujeedaan dad baa naga horreeya, dadkaas saf bay ku jiraan. Safkii baa annaguna dhankaya ka qabsanay. Saad arki kartaan oo kale dad badan nagama horreeyaan. Saan marka hore idin soo sheego meeshu meel iska gobol weeyaan, marka ciriiri badan kama jiro. Migration kadib waxa uu soo gudubnay qaybtii geedka aan ka baxinay oo diyaaradda albaabkeeda ahaa. Inta la furayo waan sugaynaa, kadibna waxay noqonaysaa inaan usii gudubno dhanka diyaaradda. Xogaa kadib geedkii waa la furay, waxaana aadnay ama u jahaysanay ama u dhaqaaqnay dhankii diyaaradda. Waxaa xusid mudan diyaaradda aan rabno haddii inaan raacno inay hadda timid oo dadkaas hadda arkaysaan ay ka degteen, kadibna ay diyaar u tahay in annaga naqaado. Waxaan soo soconaba ugu dambeyntii waxaan gudaha u soo galnay diyaaraddii. Qof kastana wuxuu helay ama ku fariistay kursigiisa iyo position-ka u lahaa. Waxaan jeclahay saaxiibayaal muuqaalka intaan u gudbin inaan la wadaago bangi aan isticmaalo. Bangiga magaciisa waxa la yiraahdaa Wise. Runtii aad iyo aad baa uga helay, adoo waddan jooga buu waddan kale akoon bangi kaa siinaya. Sidoo kale wuxuu ku fiican yahay haddii aad rabtid inaad meel kale aado kale, ma u baahnaa lacag sarrifta automatically asaa kuu sarrifaya, weliba qiimo hoose buu kugu sarrifaya. oo kale haddaa rabtid inaad UK ka baxdo oo Europe aado kale, ma u baahnaa lacag sarrifta automatically asaa kuu sarrifaya. Haddaa Europe joogto xataa laga yaabo in Scandinavian-ka sida Sweden oo kale lacagta koronta asaa kuu sarrifaya. haddaa meel kale joogto laga yaabo xataa East African aad Kenya oo kale, automatically ma u baahnaa lacag sarrifta asaa kuu sarrifaya, wuxuu kugu sarrifiyaa Kenyan shilling. Waxaa intaasii dheer, haddaa rabtid inaad akoon waddan kale ka furatid, wax hal daqiiqo yar buu kugu furayaa. linkiga bangiga saaxiibayaal waxaan dhigayaa muuqaalka description-ka, sidoo kale qaybta comment-ga aan dhigayaa, halkaas ka raaci kartaa. Haddaa muuqaalkeena ku soo laabto, waxaan soo socono ugu dambeyn waxaan ku soo caga dhiganay meeshii London ahayd. UK markaa ka soo degtid waxaa ku khasbantahay ama citizen ahow ama documenti kala hayso inaad qaybta migration-ka ama border-ka amartid. Marka annaga hadda meesha aan ka soo degnay iyo qaybta migration-ka waa kala fogaayeen. Bahalkan oo shuttle lagu magacaabo waa raacinaa, shuttle to passport control waa ujeedaa sa arki kartaanba. hal stop buu sii istaagayaa. Stoptaas in dadka raacaan maahan, laguma talagelin in looga degto, kadibna stopta labaad baa dadku dhanka wada deganayaan. Marka hadda asagii baan soo raacnay, waa bilaa darawal. qaybtiisa hore baan saaranahay, asagaa iswada, waa electronic camal, speedkiisuna waa sarreeyaa. ka warran adigu bahalkan oo kale weligaa ma raacday? Teeda kale ma raaci lahayd wax isagoo iswada aan qofna wadin. wuxuuna soo wada saaxiibayaal, wuxuuna keenay qaybtii migration-ka UK marka aad soo gashid. wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, qayb manual ah iyo qayb automatic ah. qaybta automatic waxa weeyaan baasaboorka kaliya saa u saaraysaa, hore iskaga gudbisaa. qaybta manual-kana dadka waxaa fadhiya booliska migration-ka. haddii aad citizen ahayn, baasaboorka wuxuu ku dhufanayaa shaabada inaad waddanka ka baxday soona gashay. ugu dambeyntii airport-ka waa ka soo baxnay. tareenka airport ka soo baxaya oo magaalada soo aadiyay baan soo raacnay. intaan xaafadda gaarin baa waxaan iskaga leexday makhaayad Soomaali ah. maadaama waqti qadaa la joogay, xaafaddana xoogaa isi jirtay, waxayna noqotay meesha inaan ku jireeyo. makhaayaddan waxay ku taallaa aaga Tottenham. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalkeena saaxiibayaal. waxaan leenahay channel Telegram haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel. waxaan bil walba soo dhignaa hal buug oo ku qoran luqadda Soomaaliga channelkeena Telegram. marka waa kusoo biri kartaa channelka Telegram, linkiisa waxaa ka heli kartaa qaybta description-ka muuqaalka ama qaybtiisa hoose ee muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii halkan aad soo gaartay like iyo